Assalaamu calaykum soo dhawaada cashirkan waa cashir wada sheekaysi ah cashirka intaan u guda galin ka hor haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo taabato gambaleelkan aad furto si uu kuugu soo dhaco cashar walbo muuqaalkan haddii uu ku cajab geliyo inaad like noo saarto si uu noo dhiirigeliyo cashirkan haddii aan guda galno waa cashir wada sheekaysi ah wuxuu u dhexeeyaa laba qofood waa A iyo B bilaabay wuxuu yiri you finished waad dhameysay work shaqada early goor hore today maanta you finished work early today shaqada goor hore ayaad dhameysay maanta shaqadii xilli hore ayaad soo dhameysay yacni qofkan gurigu iska yimid markaa qof kale intuu guriga jooga wuxuu yiri shaqada maanta goor hore ayaad soo dhameysay B wuxuu ku jawaabay marka yes ha my secretary xoghaayahayga ayaa helped me caawiyay a lot in badan my secretary xoghayahayga ayaa helped me caawisay a lot in badan secretary waa xoghaye inta badan markaa dumarka inta badan xoghayaha laga dhigtaa hadda wuxuu leeyahay xoghayahayga ayaa caawisay in badan well hagaag I'm sure waxaan hubaa you are very busy inaad aad mashquul u ahayd maadaama aa u baahatay in lagu caawiyo marka wuxuu ku jawaabay no maya I was not very busy aad mashquul uma ahayn my secretary xoghayahayga ayaa was much busier ka mashquul badneyd than I was sida aan aniga ahaa yacni xoghayahayga ayaa iga mashquul badneyd wuxuu yidhi I hope waxaan rajaynayaa she was not too busy inaysan aad mashquul u ahayn ayada وسائد يعني معناه B wuxuu ku jawaabay she typed waxay qortay all the letters dhammaan waraaqihii phoned waxay wacday all the clients dhammaan macaamiishii clienti kalindi dhahan Soomaalida qaarkood marka waa macaamiishii oo dhan ayay wacday and she completed waxayna dhameysay all the work dhammaan shaqadii wuxuu yiri and what about you adigana iska waran adigana maxaa qabatay kooda macnaha hadiiba ayadu wixii dhan ay qabatay and what about you adna iska waran I'm sure waxaan hubaa you were working inaad ka shaqeynaysay at something else wax kale something else kale marka adig kulli alloora wax kale unbaa ka shaqeynaysay ayaa saasaan aan hubaa leeyahay B wuxuu yiri marka no maya mostly inta badan I was watching waxaan daawanayay my secretary work shaqada xoghayahayga all day maalintii oo dhanbo xoghayahan iska fiirsanay mostly I was watching inta badan waxaan daawanayay ama aan fiirsanayay my secretary work shaqada xoghayahayga all day maalintii oo dhan marka cashir yar oo iska gaaban oo ahaa waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen fadlan ha ilaawin inaad subscribe noo saarto waxaan rabnaa inaan noqono janaal anfaco ummadda Soomaaliyeed oo ay wax ka bartaan guulaan idin rajaynaa dhammaantiin la socda cashirada kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu